رئيس الوزراء حمزة عبد برre oo mar kale si adag uga hadlay arrinta maamulka Somaliland iyo sidoo kale maamulka Israa'iil kulama ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya isla markaana ay isku arkeen xubnaha mucaaradka ee dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale madaxtooyada qaranka kulanka wadajirka ah ee baarlamaanka Soomaaliya ee goordhow ka dhici doona Villa Hargeysa madaxweynaha Soomaaliya oo hortagay baarlamaanka iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan soo koobaynaa soo dhawaada saaxiibayaal وهجاج وهريتي هدي إنه كبلا ونور رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد برre ورئيس جارسي تلفزيون كالجزيرة أي واحد وثقة تدر وهذا جوجه لي أرن كيكوك عن مملك إسرائيل رئيس الوزراء حمزة يا واحد والشيء إن مملك إسرائيل وياهي مامل أرجع حساها السوق ومركز كت المامي إسلام مركز على الشيء إن أي فرقين قاوم كوسمين يان مدح بنانيد الجمهورية الصومالية رئيس الوزراء حمزة waxa uu banaanka keenay isla markaana uu cadeeyay qorshaha Israa'iil ay ka leedahay warqadda aqoonsiga ah ee uu saxiixay ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in Israa'iil ay danaynayso in ay saldhig ka samaysato deegaanada waqooyi galbeed ee Soomaaliya halkaasi oo ay kaga duuleyso sida uu yiri xuutiyiinta dalka Yemen isla markaana ay markaasi doonayso in ay ka maamusho marinbiyoodka Baabul Mandab iyo sidoo kale marinka Badda Cas deegaanada Somaliland gaar ahaan magaalada Berbera ayaa waxa la soo warinayaa in halkaas uu ku yaalo saldhig qarsoodi ah oo ay si wadajir ah u maamulaan dawladaha Mareykanka, Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil waxaana dhawaan warar soo baxay ay sheegayaan in halkaas ay gaareen xubno sirdoon ah oo ka tirsan dawladda Israa'iil ayaa waxa ay markan doonaysaa in ay si muuqata saameyn ugu yeelato arrinta gobolka Geeska Afrika isla markaana ay hesho marinbiyoodka Baabul Mandab iyo sidoo kale Badda Cas halkaasi waxa wakiil uga noqon doona sida wararku ay sheegayaan dawladda Itoobiya oo horaan la ogyahay iyadoo aan lahayn wax bad ah in loo tababaray ciidan si casri ah loo dhisay oo badda ah Itoobiya waa wakiilka Geeska Afrika ee dawladda Israa'iil sida wararku ay sheegayaan waxaana markaasi saldhigga Somaliland laga siinayo Israa'iil ee maamuli doona isla markaana si aad ah uga howlgali doona ciidamada badda ee Itoobiya qorshaha socdo waxa uu yahay in la dhimo ama la yareeyo saameynta awoodda ay xuutiyiintu ku leeyihiin marinka Badda Cas iyo sidoo kale gacanka Baabul Mandab ra'iisul wasaare Xamza oo horaan hadlay ayaa mar hore waxa uu si adag u duray qadiyadda Yahuudda isagoo markaasi taageeray iyo garab istaag u muujiyay maamulka Falastiiniyiinta dhanka kale madaxtooyada Soomaaliya waxa xalay ka dhacay kulan gaar ah waxa halkaas isku arkay xubno mucaarad ah oo ka tirsan madasha samata bixinta iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan oo dadaalo badan waday tan iyo markii uu soo baxay oo caalka sheegaya in Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland ayaa xalay kulan gaar ah la yeeshay xubnaha mucaaradka ah kulanka ka dhacay madaxtooyada qaranka ayaa lagu lafaguray sidii ay si wadajir ah ugu midoobi lahaayeen qadiyadan isla markaana ay meel wada dhigi lahaayeen arrin loo mideysan yahay oo ay ku wajahayaan sidii loo ilaalin lahaa madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliya xubnaha mucaaradka ah ayaa madaxweyne Xasan Sheekh la qaatay go'aankiisa iyagoo markaasi ku garab istaagay isla markaana taageero u muujiyay in ay si mideysan ugu howlgalaan arrinkan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi kama soo qayb galin fadhigii wadajirka ay lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee goordhow uu khudbad ka horjeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iscaasilaada senator Dube xogo iyo macluumaad ku saabsan go'aano adag oo ay Villa Soomaaliya gaartay oo la wadaagay xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada Somaliland xogahaas ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiin haddii aad igu cusubtiinna ku soo biir page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama comment-ka kaga soo dhiib hagaagkan ku bilaabo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi deegaan ahaanna ka soo jeeda dhinaca gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa gabi ahaanba ka biyo diiday ka qaybgalka fadhiga wadajirka ah ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee imikan sida tooska uga socda xaruntooda Villa Hargeysa isla markaana uu hortagay khudbadna uu ka horjeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa la sheegay inuu ka biyo diiday sababo la xiriira in marnaba laga talagelin go'aanada adag ee Villa Soomaaliya ka gaartay tallaabooyin waaweyn oo ay doonayso in dhinaca Somaliland ay ka qaado oo saacadii ugu dambeysay kulamadii wada tashiga ahaa ee uu waday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku andacoonay in aan laga qayb galin sida daraadeedna
uu gebi ahaanba ka biyadiiday ka qaybgalka fadhigan wadajirka ah ee iminkan muqdisho uga soconaya labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya loogana hadlayo tallaabada guracan ee xadgudubka ku ah madax banaanideenna ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu. Cabdi Xaashi waxa uu ku qornaa jeedinta khudbad waxaase la siiyay bedelkiisa khudbadii uu ku qornaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare Shacbaan oo kulankan goobjoog ahaa. madaxweyne xasan sheekh maxamuud si adag oo qayaxan ayuu kaga soo horjeestay tallaabadan guracan ee uu qaaday ra'iisul wasaaraha Israel wuxuuna dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay muujiyaan midnimo iyo wadajir wuxuuna si adag oo aan gambasho lahayn u sheegay inay ka soo horjeedaan tallaabo kasta oo dib u dejin loogu sameynayo shacabka reer Falastiin ee ay doonayso Yuhuudda in dhulkooda si awood ah ay kaga barakiciso oo meelo kala deegaameen ay ugu sameyso. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ugu baaqay madaxda Somaliland uu sheegay in dhabbo aan wanaagsaneyn oo mugdi ah ay qaadayaan shacabka deegaanadaas ayuu ugu baaqay inay u kacaan inay difaacdaan dhulkooda oo marnaba aysan ogolaan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud tallaabadan uu qaaday Netanyahu waxa uu ku tilmaamay in ay tahay mid taariikhda Soomaaliya aan soo marin isla markaana ay tahay wado uu Netanyahu ku iclaamiyay in dagaalka ka soconaya bariga dhexe uu soo raro dhinaca Soomaaliya isla markaana aysan raali ka noqon doonin dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in dhabo kasta oo sharciyadeed iyo mid diblomaasiyadeed ee laga maarmaan u ah difaacidda qarannimada Soomaaliya in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadi doonto. waxaa dhinaca kale jira iscasilaad uu ku dhawaaqay goorsii wareysay senator Cismaan Dubbe wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta iminkana ka tirsan xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu iska casilay xubinnimadii golaha aqalka sare ee dalka ka gadaal markii ay xubno ka mid ah deegaanada Somaliland ka soo jeeda la wadaagay tallaabooyinka villa Soomaaliya ay doonayso in arrintan kaga jawaab celiso oo ah in cunaqabateen ciriyo dhul ah lagu soo rogo deegaanada maamulka Somaliland waxna la sheegay in sabab arrintan la xiriirta uu isku casilo xubno kale ayaa xoga soo baxayaan inay doonayaan inay iyana ka tagaan xubinnimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal oo ay ka tirsan yihiin. arrintan waxay abuurtay xiisad cusub oo siyaasadda Soomaaliya ku soo korodhay waxaana villa Soomaaliya isha lagu wada hayaa go'aanada adag ee ay qaadi doonto saacadaha soo aadan oo noqon doono kuwa lagu ciqaabayo Israel iyo Somaliland xogaha iyo macluumaadka soo kordha adiga ugu horeyn doono. nabadgelyo.